maanta waxaa idiin wadaa bariis cad oo isku kariso aad iyo aad u jilicsan oo ilmo yaryar haddii ku joogaan ay ka helayaan innaba caadi ahayn ka faa'iideyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamo dhammaan asxaabta qaaliga quruxda badan meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan. waa walaashii Shukri Maxamed Cali. Shukri Masalla idin dhees ku soo dhawaada YouTube channel-ka sida ay wanaagsan oo ila socotaan. waa idinkaga mahad celinayaa. gacmo furan ku soo dhawaada. maanta waxaa ka soo tuureynaa bariis isku karisa oo cadaan zaa'idna maaha, brown camal u noqonaa. gub waa la gubaayay, bariis waa gubeynaa. اوكي بريس يراك سطورنا ان شاء الله انه عادي اهين كلي لاب ka faa'iideyso wacan in sha Allah sida wanaagsan ay la socotaan. waa idin kaga mahad celinaa. mar hadda meeshan soo gaartay waxaa laga rabaa inaad subscribe noo saarto in sha Allah. subscribe ka cusub oo nagu soo biiray ka mid noqo. aad iyo aad u mahadsan tahay. like share garee asxaabtaada kala wadaag. hilibka nus kiilo waaye, 2 xabo basalna waa ku soo shubay, waa isku shiilaya. marka isku shiilo kadib ayaan isla soconaynaa, biyo ku soo dareynaa in sha Allah. laakiin marka hore si fiican aan iskugu dhex gelineynaa, waa isku shiileynaa, waa isku guduudineynaa, waa isku gubeynaa la iga dheh yaa kal ilaab. bariis waxaa waaye wallaahi aan inaba caadi ahayn oo haddii asaas u samaysato oo ilmahaaga yaryar xataa bariiska ee haddii diidi jireen kan waa cunayaan, waa dhammeynayaan. aad u macaan badan yahay, aad u tasti fiican yahay. annaga bariis cad markii la dhaho asaa noo fadhiyo, bariis cad oo isku karis markii la dhaho asaa noo fadhiyo. waxaa waaye adna haddaa barato in sha Allah kali laab waa ku dhex waa ka helaysaa. yaanyo male, wax kale male. waxaa waaye spices iyo maxaa la dhahaa maraq digaag iyo hilibka kaliya lagu karinayaa. bariis aad u macaan badan waaye. qof walba familka ka mid ah wuu ka heli doonaa. tijaabi in sha Allah ama asxaabtaada kalena uga faa'iideey. saa u jeediin waa soo shiilnay, waa soo shiilnay, waa soo shiilnay, waa soo shiilnay. wili waa shiileynaa marka wili la isma gaarin. saa u jeedaan waa ku soo noqdaa haddana wili waa shiileynaa. markii aad ku soo shubtid hilibka, haddaa isla markaas biyo ku shubtid xumbo kaa yeelanaa. hilibka tasti fiican ma yeelanayo, marka tasti fiican ma kaa yeelanayo. markuu shiilmo leh biyaha ku soo shubay, marka raali ahaada. biyo fiican aan ku soo shubay saa oo hilibka kuugu bislaado. hadhow bariiskan ile biyo lagu biyeena kalena uu sii bislaana soo ma. haddana biyo fiican aan ku soo shubay saa uu ku bislaado. okay waa dabooleynaa, wuu noo karkaraa. qof saacadan waxaa jiro canjeera rabaa iska soo jaray, qadaa la jooga canjeera rabaa la leeyahay. waxay ogyihiin canjeerada inay filinjeerka diyaar ku tahay, ma fahanta, oo markaas kadib la ala qaseynin. war waxaa ku dhaca canjeeradan ka faa'iideysta in sha Allah. beejkayga hore u soo geliyay waa kaas 3 xabo uga soo tuuraya oo kuleel ah, kal ilaab ah, qafiif ah. qamiir waaye haddana dhanaan male. muhiimadda horta filinjeerka loo geliyo inaa fahantiina la rabaa. qamiir waaye haddana dhanaan male. okay marka waxaa waaye anytime aa u baahatana waa kasoo tuuranaysaa, waa dubanaysaan. waa kana qofkan hadduu soo waagu soo bariyay wuxuu taagan yahay canjeera rabaa iyo ukun yaa. waa kaasaa uga soo tuuray, kal ilaab waaye. asxaabta ka faa'iideystay canjeeradan waa soo geliyay beejka, qaabka loo qasaayo, qaabka filinjeerka loo gelinayo, waxa dhan beejka idinkugu jirtaa. waxaan rajeynayaa in sha Allah inaad ka heshaan oo ka faa'iideysan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. 3 xabo waa kaasaa waa uga soo tuuray. 3 xabo kadib bariiskeena ku soo laabanay intuu noo karkaraayo. wili wuu karkarayaa saa hadda u jeedaan. waxaan sameynaynaa marka waa labeena hal mar. biyaha iyo hoos soo usii aadaya waa dareemaysiin. marka wax ma laga qaban karo. waa ku soo noqonaynaa haddana sida hadda u jeedaan. waa ku soo laabaneynaa waa ku soo laabaneynaa. marka hilibka biyo kale hadda kuma daraayo oon ahayn biyaha oo bariiska maxaa la dhahaa aa ku biyen doono. hilibkii oo bislaaday oo haddana soo gubto waa kaasaa saa u jeediin oo soo bislaanayo. marka meeshaan mariyay sidaa waxaa kusoo darsanaysaa wixii markaas aa haysato. ada xawaajiyaal ha noqoto, kabsar caleen ha noqoto, heel ha noqoto, qorfa ha noqoto, maraq digaag ha noqoto, wixii markaas aa haysato aad ku soo daraysaa. bariiskana waa ku shiilaysaa. wallaahi alaabtan caadi ma ahan, waana macaan, waana easy way waaye. haddii aad baratan waa ka helaysaan in sha Allah. waa kaasaa hadda wili xataa si fiican uma gubanin. waxaan rabaa inuu xoogaa guduud camal soo noqdo. intaasna waxaan kusoo dardarayaa. okay marka bilow masalahan aa haystaa. bilow masalahan haddaa haysatid way kuu fadhidaa. xawaaji kale uma baahnid, wax kale uma baahnid. bilow masalaha bariiska kalar ma kaaga yeelaayo, laakiin waxaa waaye carafna kaaga dhigaa, wuuna kuu macaaneynaa. waa kaasaa bilow masalihi wax yar kusoo daray. bilow masalaha markaa kusoo daray ani heel oo ma haysti oo hadda shiidan wuu iga dhamaaday. marka heel yaraa soo jukujukeynaya oo kusoo daraya. heelka shiidnaa oo caaga ii fiican oo ii fudud wuuna iga dhamaaday. heelkan kaleeto markaa soo tumo waxaa isku dayaa si fiican inaan usoo tumo. hoos haddaana soo tumin
maxaa la dhahaa qolfahaas way bixbixinay gabadheyda shaqo aan galaa markaas ma fahanteen markaasaa wuu iga dhammaada kanaan jeclaa inaan mar walba ku daro laakiin wuu dhammaaday kaas waxaa waa wuu shiidan yahay soft waaye smooth waaye waxaa bixbixinaysid male suu soo gubanayo digsiga mu jeedin gubnoodkaasaa kalar yar u sameynaa caddaan cad ma noqonayo brown camal uu noqonaa bariiska marka hala gubo waa kaasaa biyo yaraa kusoo dhibciyey sidii gubnoodka uu uga soo foqo dhulka oo markii aad soo biyeeyey uu maxaa la dhahaa kalarka u bedelo biyaha waxyar bariiskaa kusoo shiileynaa bariiskaan karinayo waa 2 galaas iyo wax yariis ah 2 galaas iyo wax yar waaye 3 galaas ma dhamo marka jumbo iyo rico iyo waxaas kusoo dardaraya marka rico iyo jumbo waaye marka 1 xabo iyo 3 xabo rico marka riikaha tastii ku sameynaya malahan maxaa la dhahaa dhanaan badan marka jumbaha le wax yar dhanaan marka cusbana waa kusoo dareynaa insha Allah sida bariis aad u macaan badan oo kaala arago oo kugu soo baxo muhiimadda waxaa waaye tastiga haddaa tastiga iska saxdo cuntadaada way macaanaani haddii laakiin cunto kasta aa karisid oo tastigeeda aysan okay ahayn dhadhanka micnaha ka wadaa cuntadii dhan waxa waaye waa lagaaga kala tag laakiin haddii aa mar walba dhadhanka aa xisaabiso oo dhadhanka cuntada aad ka taxadirto cuntadaada way fadhidaa ilaa xataa dalac bilaash iyo baasta le xataa kari laakiin dhadhanka haddii uu kuu fadhiyo dalac bilaashkaas iyo baastadaas maalin walba lagu weydiinaa waa isla haynaa maaho soo biyo karkaraya haystay biyo karkaraya kusoo shubaya okay biyaha karkaraya markaa kusoo shubo waa kaasaa bariiska si fiican u labaa sidii hoos gubnoodka uu si fiican biyaha ugu soo dhex darsamo kadib waxaa kusoo darayaa maxaa la dhahaa kabsar caleen iyo toon oo halqaade ah dhan kadibna waxaa waaye waa dabooli doonaa waaba arkaysiibo marka waqtiga foornada la gelin lahayaa soo dhow okay cusbo yaraa kusoo darayaa waan dhadhamiyey markaa dhadhamiyey cusbo yar u baahnaa hadda cusbada markaa ku dara xataa waa dhadhaminayaa sida dhadhankiisa maraq digaaga iyo cusbadii iyo bariiska u dhadhan fiican u haysto bariiska intuusan kaa gursanin ayaa mar walba waxaa fiican dhadhanka intuu biyaha haysta inaad iska dhadhamisid mar hadduu kaa gursado kadib waxaa waaye sheeko kale waaye ma fiicni inaa markaas cusbo iyo wax korka uga darto laakiin intuusan biyaha kaa gursanin jaanis waxaa haysataa aad wax walba ku saxi karto marka hadda waa kaasaa saasuu usoo badbadaya ah hadda ujeedaan dan waxaa sameynaa kabsar caleen iyo toon oo halqaada kusoo daraa isku soo shiiday waa labayaa dan waa tastigareynaa haddana exactly meesha laga raba miyaa mise weli waxbaa ka dhiman cusbadina waa kusoo dar waa ogeydeen maaho marka hadda waa kaasaa waa dhadhaminaa intuu kaa gursanina dhadhaminaysaa marka bariiska biyahan intuusan gursanin ayaa waxaa rabaa inaa geliyo foornada okay waa hadda dhadhankiisa soo waa kusoo laabaneynaa marka hadda waa marka foornada la gelinayo intuusan bariiska kaa gursanin aa foornada kusoo huurinaysaa aa kusoo karinaysaa qaybta dhiban bariisku saas biyo u leh aa la rabaa inaa foornada gelisid bariiskaas hadday ilmo yaryar kuu joogaan haddii maxaa la dhahaa waalidka uu kuu joogo haddiise cusbo cunin dhanaanka ka dhaafaysaa laakiin waxaan ku dhahay ilmo haddii kuu joogaan haddii kaa diidi jireen xataa cuntada maanta dhan kusoo daraa lagu dhahaa because waa bariis jilacsan waaye ilmahana way jecel yihiin bariiska jilacsan marka biyihii ma gursan soo maaha saana usoo xiraysaa foornadu ku gursanaya marka uu ku bislaanaya markuu ku gursado waa arkaysaan foornadaa geliyo waa kaasaa asagii iyo biyihiisii wixiisoo dhan dabkana u dheereynaysaa kor iyo hoos aa u geynaysaa hal meel ma uga shidaysid kor iyo hoos aa uga shidaysaa kor iyo hoos markaa uga shido isku sii kuugu bislaanaya bariiska geesaha dhaxda kor kaala arag wuu isku sitiin gareysmaa wuu isku huuraa kaala arag wuu kusoo baxaya markaa foornada kasoo saar wuu intaa foornada kasoo bixiyaan daboolkii gacanta ku qabsaday waaba ilaaba basee idin dhahay abow nuuro soo waa kaasaa waa soo qabtay haddaa fiidaa marka kuleelna waaye laakiin waa fiidaa insha Allah waa kaasaa saasuu kusoo baxay qaaciya wax yar kaamirada iiga aadanaya sugo intuu qaaca ka baxaayo waa kaasaa bariiskaas inaba caadi aheena kasoo baxay foornada kuugu soo bislaaday bariis jileece oo cadaan haddaa rabto hadda kadib saan u karso foornadana geli foornada geli intaysan biyaha gursanin oo biyaha dhan uusan kaa dhamaanin foornada kusoo huuri waa ka sheekeyn doontaa insha Allah waxaa rajeynayaa
inaad ka heli doontaan. hadduu muuqaalkan kusoo gaaro like garee, share garee, asxaabtaada kala wadaag. please haddaa inta isla soo gaarnay hadduusan subscribe ku ahayn page-ka subscribe ii saar insha allah. aada u mahadsan tahay. waa daawanaysaan muuqaalkii laakiin waxaan arkayaa dareemayaa inaadan subscribe iyo like badan aadan saareynin. marka insha allah aada u mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar. waa ku mahadsan tahay muuqaalka. soo dhawow asxaabtida qaaliga. waxaan rabaa inaan idin tuso bariiska qaabka uu u jilacsan yahay inaa aragtaan, laakiin hadda lama cunaayo because foornada ku celinaya. bariiska haddii waqti xaadirkaas qofka cuni lahaa, dadka cuni lahaa aysan diyaar ahayn, foornada qabanaysaa, waa dabooleysaa, sidii u dabooleysaa, foornada ku celinay because foornadu weli way kulushahay soo maaha. bariiski kaama qaboobaay maanta dhan, qofkii rabo intuu gurto waa ku celin kartaa. soo markaasaa bariis jilacsan oo kaala aragaa meeshaas ka soo baxay. anaan idiin dhadhaminaayo inaba caadi ma ahan, laakiin bariiska hadda lama cunaayo maadaama la cunaynin. waxaan ku qasbanahay inaan foornada ku celiyo. markaa foornada ku celinaysa haddana sidii u xireysaa. waqtiga diyaar loo yahay lee la cunaa. cuntadaas markaa qaboobeyso macaan lagu sii qaada markuu sii huuro kal iyo laab waaye. haddaa ka heshaan insha allah bariiskan foornada ka faa'iideysi wacan insha allah. saana usoo xiraaya haddana waa ku celinayaa, foornada lagu celinaya insha allah hadduu ilaa yiraahdo. foornada hadda keega igu jiro, keega casriye oo kabkeega u sameynayay idilay. marka maadaama u sameynayay markaa keega hadda foornada markaa keega kasoo bixiyo kuleelka badanna uu waxyar ka baxo kadib waxaa sameynaya digsiga ku celinaya. digsiga markaa ku celiyo markuu igu kululaanaya bariiskana kaama qaboobayo. okay waa kaasaa kal iyo laab waayo, wax laga qaban karo male. digsiga waa kusoo celiyey markii keega kasoo saaray, saasuu ugu jiraya insha allah inta waqtiga la cuni lahaa iyo dadka cuni lahaa laga gaarayo. aad iyo aad u mahadsantiin muuqaalka. hadaa ka hesha like, subscribe, comment qurux badan. waxaa idin leeyahay khayr iyo nabad. waxaa idin kaga sii tagaa jannatul firdowso. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.